kulankani oo maanta looga tashanayay arrimaha amniga ayaa maanta ka dhacay guriga martida ee magaalada Kismaayo waxaana ka qayb galay qaar kamid ah golaha wasiirada Jubbaland saraakiisha ciidamada iyo qaybo ka socday hay'adda UNDP qaybtooda booliska kulanka intii uu socday saxaafadda ayaa dibad joog ka ahayd kulanka ayaa lagu falanqeynayay qaabka loo marayo tayeenta ciidamada dalka gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland markii uu kulanka soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur aad iyo aad baan mahadsantihiin bahas saxaafadda shirkayga maanta oo 25kii bishii Oktoobar ah wuxuu ku salaysnaa shir aan rabnay haddii alla idmo ama wadatashi ahaa oo loogu tayeynayay ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland oo aan la yeelanay madax sare oo ka socoto hay'adda UNDP ee qaybteeda booliska iyo ka caawisa arrimaha Soomaaliya dhinaca ammaanka ama dhismaha ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedyada iyo sidoo kale Amisom Police saraakiil ka socotay runtii shirkayga wuxuu ahaa shir aad muhiim u ah ahmiyad ballaaran ugu fadhiya dowlad goboleedka Jubbaland qaasatan qaabkii loo dhisi lahaa ciidamada booliska sababtoo ah ciidamada boolisku waxa way laf dhabarkii ummadda runtii bulshada ama nidaamka dawliga aba oo dalka dhanba ah meelayna boolis jirin oo booliskoodu ayna tayeysnayn oo ciidamadaasi aynan ahayn ciidamo shacabka oo adeegii looga baahnaa u qaban karo marka inaan gaarsiino insha Raxmaan oo dhisan ciidamadoodu qayb badan oo kamid ah sidoo hore ugu ogaadeen tababar baa ciidamo ka soo baxeen tababar ilaa 2 dafca ah kuwa kale hadda la xareynaya taas marka inaan sii tayeyno oo aan haddii alla idmo gaarsiino isku filnaan ciidanka boolisku ay ku filan yihiin ammaankii shacabka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland oo gobol baba ama laamihii looga baahnaa dhamaan haday tahay trafikadii ciidamadii ammaanka canshuuraha ilaalin lahaa ciidankii dab hadduu ka musiibay dhacdo dabdamiska sameyn lahaa la dagaalanka argagixisada booliska qaybtii uu ku lahaa ama uu ka qaban lahaa saldhigyadii iyo taliska guud oo ciidanka booliska Jubbaland runtii barnaamijkaas si wanaagsan buu shirkaas u dhacay waxaan rajaynaynaa insha Raxmaan muddo yar oo kooban in ay baahida boolis ee ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland qayb badan oo kamid ah aan u heli doono xal insha Allah taala isla yahay shacabkooda ama ka soo saari doono ciidamo shacabkooda u adeego haddii alla idmo soo celiyo dhammaan sharciyadii looga baahnaa ciidanka booliska inay uga dhex adeegaan bulshadooda Soomaaliyeed ee gaar ahaan reer Jubbaland sidoo kale ma aha shirkaan kali ah waa qorsho wasaaradda amnigu ay wado oo ku salaysan in baahida shacabka reer Jubbaland ay u baahan yihiin dhinaca ammaanka qorsho ah oo ballaaran oo kan qayb ka ahaa in booliska la habeeyo waxaan habeen doonaa insha Raxmaan qayb kasto oo ciidamadoodu ay ku salaysan yihiin baan tayeenaynaa si shacabka ammaankiisa gacanta loogu soo celiyo oo runtii loo helo nabad ballaaran insha Raxmaan waan rajaynaynaa insha Allah taala inaan ku guuleysan doono dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wada dadaalo lagu dhisay tayeenta ciidamada mana ahan markii ugu horeysay oo kulamo ceenkani oo kala ay yeeshaan mas'uuliyiin ka socday hay'adda UNDP iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland Ismaaciil Cali Cabdi warbaahinta dhanaan magaalada Kismaayo.